ragga iga dambeeya hadal igu tuqaaya yuhuud bay la dasay ka dhigaya tootow soo kuwa docdaadii dagaalkaaga jooga ee dusha ka ilaaliya ma hadda daliilada dib ka xasuusteen oo dood ka dhigateen xaga hada koonfurta ku cama xasan guurtay waxaan leeyahay adoo mucaaradkaaga ka adkaan oo dalkaaga ka adkaan annaga faqana la soo galay hada ruwan danaystay dawgiina raaco toqonnimada jooja marka waxaan leeyahay annagu waan danaysanay waan tagnay dalkaygan u tushanay ee idinku maanta markaydu weydeen dal aan leedihiin iyo dad aan leedihiin oo idin taageera xitaa aydan ciidan lahayn sidee loo odhan karaa marka waa dawlad jirta dal aan ciidan difaaca oo ka difaaca cadowga shisheeya haddaanu lahayn oo afrikaankii shisheeye gaalka uu difaacayo maanta suu marka anigoo ciidankaygi maanta barbar marayo oo igu dabaaldegayo oo hubkiisa iyo cududiisa iyo dalnimadiisa la arkayo suu markaa igu idhaahdaa waxaa tahay daliga mida siyaasadiisa aqoonsi raadintu waa siyaasad aan la mid ahayn tii hore sababtoo wuxuu ku socdaa yaa aqoonsanaya yaa aqoonsiyaan siiyaa yacni aqoonsi waan ku sii anna wax waan kuu bedelkeedaan ku siinayaa waxaan ku sugannahay bartamaha magaalada Hargeysa dabaaldega 18 May boqolaal kumaanku shacabka reer Hargeysa ayaa isugu soo baxay wadada weyn ee halbowlaha ee agmarta aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxa kamid ah iyagu dhalinyarada waqti u helay inay kamid noqdaan inay daawadaan ciidankooda qaranka Soomaaliland oo markaas halkan gaadi ciyaar ku maraya mid kamid ah ayaa barbarkayga taagan walaal soo dhawow bal dareenka ka war wallahi u fiicay marka koobaad dhawaadimidii koobaad iyada la Soomaaliland ictiraafiye la dabaaldegayo waa kuwii horena way ka duwatay lama mid ahade taa way kaga duwatay talabaad ay dhimay kasta marka la marayo kale waxa mari jiray arday badan iyo shicibka lagu soo dhaxdayn jiray taana maanta waa laga joojiyay kaga duwatay waa tas dhaxade waxa kaga duwantay ay dhimaydii hore madaxda qaar baa maqnaan jirtay ama ka cudur daaran jiray maanta way wada fadhidaan wala wadaarkii waa tasaxada shicibkuna maanta dareenkooda uu kacsi kasto bariyo aad u kacsanaa maanta uu ka duwan yahay oo lama mid ah xitaa markii hore marka la dabaaldegay gawaadhada maraan way si kala tegi jireen laakiin maanta ilaa waxa lagu yaacayaan ilaa madaxtooyada aqoonsiga uu keenay horta marka la eego xilka waa qorsku dhib madaxweyne walba Soomaaliland joogana taa uu doonayay inuu keeno yaa oo cigaalba waa kii lahaa maxay saydaan xitaa tay la noqoto waanu tagay waana leeshinaya yaa marka dadaalku baynu ku soconnaa haddii iyagu leeyihiin markay yuhuud ba haleeshinina muslimiin buu leenayaa hadaa ma China salaaxa China dad u laayo muslimiin u laayay China waa gaal adil markay leeyihiin maxay yuhuud ba leeshisay yuhuud muslimiin buu laayay adeeradu laayay China u laaya teeda kale yuhuud nabi maxamed uu leeshiin oo waliba waa ka guursaday nabi maxamed uu leeshiin ka guursaday anagu ka guursan mayna aduu heshiis naga soo galay maxaa diidaya ma xaraamba baka waxa leeyahay qiira jabaata taqaanaan marka wadooyin walba idinka soo xidmaan oo garan weedaan meel aad u dhaqaaqdaan oo garan weedaan hadal aad tiraadaan ha u soo dhagashubanina ama ha u imanina ina Soomaaliland cayda ama cayyaab lagaado aad kala hortimaadaan taasina waxay muujinaysaa in ay idintiin dawlad fashilantay oo aan la institution dawladnimo dawladdu markay dawlad tahay waa marka la yiraahdo yani gobolada dalka oo dhan bay gaadhaa gobolada dalka oo dhan dalka ay maamushay sheeganayso goboladeeda haday maamulayso waa dawlad ku soo noqon siyaasadda uu Cabdiraxmaan Ciro oo aqoonsi raadinta aqoonsiga ku keenay adigu sidaad u aragtaa anu waxaan u arkaa kow madaxweyne walba uu yoolkiisu xoogay inuu Soomaaliland mid dunidana ka mid ah keeno isagu labadiiba uu isku helay oo yoolkii ahaa Soomaaliland mid ah dunidana ka mid ah uu kaga dhabeeyay intaan ictiraafkeenu wuxuu jeestay inuu dalka nabadeeyo oo wuxuu nabadeeyay barigii oo dhinaca boormo uu nabadeeyay ciidankiina ciidan fara badan buu ku tago qaar
badan buu qaramay iminka ciidanka tiradii markii hore ay ahaayeen maaha talabaad madaxweynuhu siyaasaddiisa aqoonsi raadintu waa siyaasad aan la mid ahayn tii hore sababtoo wuxuu ku socdaa yaa aqoonsanaya yaa aqoonsiyaan siiyaa yacni aqoonsi waan ku sii anna wax waan kuu beddelkeedaan ku siinayaa si walba markaa waxaan leeyahay xagga hadda koonfurta ku cama xasan guurguurtay waxaan leeyahay adoo mucaaradkaaga ka adkaan oo dalkaaga ka adkaan annaga farana la soo gelay waxaan leeyahay iyo ma saaba ku tuuraya waxa leeyahay ragga iga dambeeya hada lagu tuuraya yuhuud bay la dasay ka dhigaya tootow soo kuwa docdaadii dagaalkaaga jooga ee dusha ka ilaaliya baada daliilada dib ku xasuusteen oo dood ka dhigateen adeer waan danaystay dawgiina raaco doqonnimada jooja marka waxaan leeyahay annagu waan danaysanay waan tagnay dadkaygaan u tushanay ee idinku maanta markaydu weydeen dal aan leedihiin iyo dad aan leedihiin oo idin taageera xitaa aydan ciidan lahayn sidee loo odhan karaa marka waa dawlad jirta dal aan ciidan difaaca oo ka difaaca cadowga shisheeya haddaanu lahayn oo afrikaankii shisheeye gaalka ah uu difaacayo maanta suu markaa anigoo ciidankayga maanta barbar marayo oo igu doogta baldegayo oo hubkiisa iyo cudurdiisa iyo talnimadiisa la arkayo suu markaa igu idhaahdaa waxaa tahay dali ka mid a abti waxaan leeyahay xasan sheekhow intaanad annaga noo iman mucaaradkaaga iyo dadkaaga ka adkow talabaad maanta saynu argila xasan wuxuu u soo saan qaatay inuu somalilan kala geeyo si walbad haddaad tidhaahdo xitaa maxay ahaydey laasacaanood baan imanayaa abta annaga taas u joogsan mayno una istaagi mayno sababta dad tashaday baanay